Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkan waa janalka Toosno Media toos uga barateen wararka ugu doorkaroon ee Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada warka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo cambaareysay qaraxii ka dhacay Muqdisho. Baaqa Xasan Sheekh xaguu ku aadan yahay dowladda federaalka oo qaaday ciidamadii ay ka digtay daljirka Dahsoon. Ra'iisul Wasaare Roble oo helay fursad weyn 4 sabab dartood. Wararkii ugu dambeeyay dowladda Turkiga war ka soo saartay qaraxii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Qodobadaas oo faahfaahsan ayaad maqli doontaan goordhow. waxaa markii saddexaad 4 Maaj baaqday shirki uu u cilaamiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo aysan muuqan saansaan kale oo uu ku qabsoomi karo shirarka muhiimka ah ee doorashada Soomaaliya. kulanka madaxweyne Farmaajo waxaa diidan mucaaradka iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland waana awood saameyn weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya iyadoo ay sii dheer tahay in waqtiga meel adag marayo iyo in uu dhamaaday muddaxileedka madaxweynaha. tan iyo wixii ka dambeeyay 8 bisha Febraayo oo ku beegnayd muddaxileedka madaxweynaha ayay wax kasta sii adkaadeen. hadda Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu haystay fursad dahabi ah oo suurtagelin karta in uu hoggaanka u qabto doorashada Soomaaliya isla markaana Soomaaliya ku reebto magac iyo sumcad ay taariikhda xusto. maamulada qaar iyo mucaaradka oo ka kalsooni baxay madaxweyne Farmaajo iyo dhammaan kulamadii uu iclaamiyay oo qabsoomi waayay ayaa suurtagelin kara in talada doorashada loo dhiibo Roble. waxayse u baahan tahay in isaga uu muujiyo hamigaas iyo in uusan wax cabsi ah ka qabin falcelinta filla Soomaaliya. xaaladda amni ee dalka ka jirta oo cabsi iyo qalqal xoog la ayaa sidoo kale suurtagal ka dhigi kara in Roble madax ka noqdo doorashada Soomaaliya sababtoo ah waxa ugu weyn ee beesha caalamku ku qabsan kara inay Farmaajo run u sheegaan ay tahay cabsida dagaal dalka ka dhaca. sababtoo ah waxa ugu weyn ee beesha caalamka ku qasbi kara inay Farmaajo runta u sheegaan ayaa ah cabsida dagaalka dalka ka dhaca, taasi oo haddii aan maamulka doorashada laga wareejin Farmaajo in waqtigii madaxweynaha uu dhamaaday isla markaana mudane Farmaajo uusan haysan wax sharciyad ah oo uu ku qaato go'aan masiiri ayaa sidoo kale fursad siinaysa Roble. sidoo kale Farmaajo waa musharax madaxweyne, suurtagalna maaha in cayaar uu qayb ka yahay uu sidoo kale garsoore ka noqdo. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ANSOM ayaa waxaa looga hadlay qaraxii xoogganaa ee xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ka oo geystay waxyaalo kala duwan. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay si xooggan u cambaareynayso weerarkaasi isla markaana waxa ay tacsi u dirtay ehelada ay dadkoodu ku dhinteen qaraxaasi. sidoo kale qaramada midoobay ayaa caafimaad degdeg ah u rajeysay dadkii kale ee ku dhaawacmay weerarka ka oo kor u dhaafaya ilaa 30 qof. bahda qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay si adag u cambaareynaysaa weerarkii foosha xumaa ee Al-Shabaab ay 5 Maaj ka geysteen magaalada Muqdisho. waxa ayna tacsi u dirayaan qoysaska dadkii naftooda ku waayay weerarka iyagoo u rajeeyay caafimaad degdeg ah ku dhaawacmay ayaa lagu yiri qoraalka qaramada midoobay. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo qaraxii xalay ka dhacay maqaayadda Lulyamani ay ka dhalatay cambaareyn xooggan ka oo ay sheegtay kooxda Al-Shabaab. si kastaba muddooyinkii la soo dhaafay ayaa waxaa gudaha caasimadda ka dhacay falal liddi ku ah ammaanka kuwa oo isugu jira dilal iyo qaraxyo, waxaana arrimahan ay ku soo aadayaan xilli ay Soomaaliya ku jirto marxaladda kala guurka ah. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay dib u qaaday ciidamadii ay shalay dhigtay wadooyinka waaweyn ee soo gala taalada daljirka Dahsoon ee ku taala degmada Boondere gobolka Banaadir. wararka ayaa sheegaya in saaka aroortii hore la qaaday ciidamadaasi oo loogu talagalay inay ka hortagaan dibadbaxa mucaaradka oo ay musharaxiintu baajiyeen ka oo ay hore u shaaciyeen inuu dhacayo maanta oo Sabti ah kuna beegan 6 bisha Maaj 2021. sidoo kale waxaa haatan si caadi ah u shaqeynaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee iskaga kala gooshaya agagaarka taalada daljirka Dahsoon oo shalay la xiray. arrimahan ayaa ku soo aadaya iyada oo lagu kala kacay shirki ugu dambeeyay ee midowga musharaxiinta iyo Ra'iisul Wasaare Roble ka oo ku soo dhamaaday natiijo la'aan, waxaana ka dhashay inuu halkiisii ku laabto khilaafka u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka. lama oga sida ay wax noqon doonaan, waxaana xaaladda siyaasadeed ee dalka ay weli tahay mid isku cakiran, mana jiro weli xal laga gaaray muranka ka taagan doorashooyinka.
Dowladda Turkiga ayaa si adag uga hadashay qaraxiis miidaaminta ee xalay ka dhacay maqaayadda Lul Yameni ee ku taalla degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa waxaa lagu cambaareeyay weerarkaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Turkiga ayaa sidoo kale tacsi u dirtay ehelada ay dadkoodu ku dhinteen qaraxaasi, isaga oo kuwa dhaawaca ahna u rajeeyay caafimaad degdeg ah. Waxaan si adag u cambaareynaa weerarkan foosha xun ee argagixisada, waxaana tacsi u direynaa shacabka walaalaha ah iyo dowladda Soomaaliya. Waxaan u rajeyneynaa naxariista Eebbe korkiisa, kuwa naftooda ku waayayna waxaan u rajeyneynaa caafimaad degdeg ah, kuwa dhaawacmay ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. Sidoo kale dowladda Turkiga ayaa shaaca ka qaaday inay mar waliba garab taagnaan doonto dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaan mar kale carabka ku adkeyneynaa inaan sii wadi doono garab istaagga dalka walaalaha ee Soomaaliyeed ee dagaalka ay kula jiraan argagixisada, ayaa mar kale lagu yiri qoraalka ay soo saartay dowladda Turkiga. Ugu dambeyntiina, qaraxii xalay ka dhacay maqaayadda Lul Yameni oo ay sheegatay kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa ku dhintay ilaa 25 ruux, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 kale oo isugu jiray shacab iyo askar. Inta ayaan kusoo gabagabeyneynaa warkeeni maanta. Asalaamu calaykum waraxmatullah.